ku soo dhowaada nabadjire podcast. Ujeeddada podcastan waa in la falaqeeyo arrimaha khuseeya bulshada Soomaaliyeed sida nabadda, wacyigelinta, maamul wanaagga, suugaanta, horumarka. Waxaan martigelinaynaa khuburo, hogaamiyeyaal, aqoon-yahano, suxufiyiin iyo dadka saamaynta leh si aan gacan uga geysanno fahamka xaaladaha jira iyo wanaajinta bulshada Soomaaliyeed. waa sidaan u sheegaya marka ugu horeysa waxaan darsaynaa xoolaheenna markaan darsno iyagii baa kala duwan. marka xoolaha wax la yidhaahdo livestock characterization marka hore waa inaad iyagii horta aad ablayso. waxaad samaynaysaa marka inaad isku tallaal marka qaarkood aad samayso. waxaa kuu soo baxaya 50-50 ilmo ah. neefafkaas waa neefaf iska dhal oo kale ah oo kale ha geel baa laga yaabaa hadda gobolka city geel yaryar oo gaaban oo geel xeebeeda oo saasay haystaan oo xoog badnayn maxaa la yidhaha laakiin nolosha halkaa ku taalla ee kulul adkaysi u leh. kusoo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijka nabadjire podcast oo ku baxa habka podcastka. barnaamijka qaybtiisa labaad maanta waxaa marti inoo ku ah maxamed shariif oo ah maareeyaha xarunta cilmi-baarista xoolaha iyo beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida. maxamed soo dhowow kuna soo dhowow Garowe. aad baad mahadsantahay. waxaan rabaa marka koowaad inaad si guud u kormartid howlaha ay qabato xarunta cilmi-baarista xoolaha iyo beeraha ee deegaanka. aad baad mahadsantahay. macadkan cilmi-baarista xoolaha iyo beeraha ee deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida waa 23 jir la aasaasay 2002. ujeeddada loo aasaasay waxay ahayd wax ka qabashada dhinaca cilmi-baarista iyo horumarinta xoolaha, beeraha iyo khayraadka dabiiciga. nolosheenna waxay ku tiirsan tahay waa xoolo iyo beer iyo khayraadkii oo ah labadaasi aanay shaqaynayn haddii khayraadka la ilaalin waayo. marka inta badan aasaaska waxaasa waa waxyaabaha kale u adeega oo qaybaha kale oo socio-economic ama dhaqan-dhaqaalaha, arrimahan la xidhiidha agricultural mechanizationka, food and science-ka ama cuntada iyo nafaqada, qalabka beeraha, fidinta beeraha, dhinacaas oo dhan researchka wixii la xidhiidha ama cilmi-baarista la xidhiidha ayuu u taagan yahay. 4 tiir oo waaweyn buu ku aasaasan yahay oo loogu aasaasay looguna talagalay in howlaha wax kaga qabto in farsamooyin casri ah oo xilliga la socda la soo saaro oo cilmi-baaris la sameeyo. haddii abuurka iyo dhinaca dalaga beeraha la yidhaahdo maxaa adduunka ku cusub, maxaa waxayni xaaladiisa halkee maraysaa, maxaa cusub aan keeni karnaa. marka waxaa la yidhaahdaa technology generation ama in la curiyo ama lasoo saaro farsamooyin oo dhinaca la xidhiidha xoolaha. haddii aan xoolo haysanno xoolaheenna hiddahooda maxay yihiin marka hore inaad barato, kadib ka adduunyada aragto, kadib maxaa u dhexeeya wax soo saarkooda, caano maxay ku kala duwan yihiin, cadkooda muxuu ku kala duwan yahay, saanta iyo harkahooda maxay ku kala duwan yihiin, dhinaca suuqgeyntooda xalla wixii xoolaha la xidhiidha iyo waxyaabaha dhinacyadaas kala duwanaanshaha sabab u ah, mahiddaha sabab u ah, mise habka loo dhaqdo ayaa sabab u ah, mise khayraadkii ay isticmaalayeen oo caalafkii iyo cawskii iyo biyihii ayaa saamayn ku leh. marka dhammaan xoolaha wixii la xidhiidha saasoo kale. marka wax cusub in lasoo saaro. ka labaadna waxaa cusubi waxaa laga yaabaa inuuna mar walba wax cusub ahayn, laakiin kii aan haysanay in lagu sameeyo, la wanaajiyo, la horumariyo, improvement lagu sameeyo ayaa ka mid ah. in wax cusub oo adduunka ka jiro inaga jirin la keenana ma tira iyadoo loo mariyo jidka maaragtay saxa, laakiin waa marka aan keenna maaragtay hagaajintiisa lais yidhaahdo malaha wax kale cusub in lagu dara fiican. marka tiirka labaadna waxa weeyaan waxaan la soo saaray technology-ga ah nooc kastaba ha noqdo, xoolaha iyo khayraadka iyo hala xidhiidho dalaga beeraha isaga ama information buu noqon karaa. yacni xog baa muhiima lafteedu in xog la helo cusub oo dhinaca maaragtay dhaqan-dhaqaalaha iyo wax la xidhiidha. marka taa la helo in la badiyo wey. marka waxa la yidhaha technology generation iyo ka labaad oo technology multiplication.
haddii abuur aad heshay ama aad breed xoolaha oo wanaagsan heshay waa in la badiyo si uu dadkii u gaari karo ilaan dad baad u socotaa inaad gaarsiiso dan ka saddexaad haddana waa dissemination ama faafinta wixii aad soo saartay inaad dadkii gaarsiiso ugu dambaysta qaybta afraad ama tiirka afraad waa in marka kobcinta awoodda dadka waxaan soo saaraya oo shaqaalihii iyo bahwadaagtii xafiisyadii kale ee la xidhiidhay cilmi baadhista beerihii iyo maxaa la yidhahdaa xoolihii iyo ka shaqaynayay shaqaalihii iyo macadka laftiisa cilmi baadhista ku howlanaa inaad awooddoodii dhisto qalab iyo wixii loo baahan yahay dhinaca kalena dadkii ka faa'iidaystayaasha ahaa oo beeraleydii iyo xoolo-dhaqatadii iyo xoolo-dhaqata beeraleydii iyagana awooddoodii aad dhisto marka afartaa tiir oo ayaa ugu muhiimsan oo maxaa la yidhahdaa aan ku shaqayno waxa kaloo dhan tiirarkaasu ka farcamaa marka guud ahaan qaabka aan u shaqayno waa farsamada qaabkaasaan u shaqaynaa wax gudaheena haysoon hagaajino wax meel kale jiro oon keenno wax la yidhaahdo la qabsi ayaan ku eegnaa waxaasoo kale inuu waxaan la qabsan karo abuur cusub baad laga yaaba inaad puntland ka hesho ama farsamo cusub farsamada deegaanka inaad geen adiga oo yaqaana cimilada deegaankaaga oo marka ugu horeysa ee cilmi baadhis samaynayso waa inaad agroecologigii maxaa la yidhahdaa ama cimilo beereedkii deegaankaaga waa inaad hayso marka hore aad daristo den maxaa halkan ku habboon maxaan ku habboonayn maxaa tan kale marka taas markaan samayno ayaan marka samaynaa wax cusub haddii aan loo baahan yahay markay la qabsiga aan eegno ayaan haddana faafintii jidkii caadiga ahaa maraa marka qaab saasaan u shaqaynaa maxaa ka mid a tijaabooyinka ay isku dayday macadku oo guuleystay markay timaado dhanka xoolaha iyo dhanka beerahaba waa sidaan u sheegaya marka ugu horeysa waxaan darsaynaa xoolaheenna markaan darsno iyagii baa kala duwan marka xoolaha wax la yidhaahdo livestock characterization marka hore waa inaad iyagii horta aad ablayso ood garato geel lo ari maxaa kuu jooga adoo u eegaya hiddaha adduunka laga yaqaano markaad taa ogaato kadibna waxaad samaynaysaa wax la yidhaahdo xulasho inaad xulato kuwa fiican idihii baad eegi kuwa fiican deegaankee laga helaa halkay joogaan ku soo dhowaada nabadjire podcast ujeeddada podcastan waa in la xulateeyo arrimaha khuseeya bulshada soomaaliyeed sida nabadda wanaagga suugaanta horumarka martigelinayna khuburo hogaamiyeyaal aqoon-yahano dadka saameynta leh si aan gacan uga geysano fahamka xaaladaha jira iyo wanaajinta bulshada soomaaliyeed maxaa la yidhahdaa ayaa jira weight lagu yaqaano ideal weight ama maaragtay miisaan xooluhu ay ku caalamka lagu iibsadaa jira marka way ka hooseeyaan baa la dhahayaa marka meesha ka roon ee kale ee ugu dhowee suuragala inaad eegto marka marar baanu ka keennay ido South Africa oo kale dhowr barshiib la yidhaahdo kuweenni baan isku tallaalay marka kuweenu cimiladeena la haystaan waxyaaba ay kaga fiican yihiin kuwaana way jiraan adkaysigay kaga fiican yihiin mararka qaarkood quruxda bini'aadamka quruxdana wuu iska jecel yahay way ka qurux badan yihiin geelena geelasha kale ka qool badan yahay marka idahaasoo kale waa la keeni dhinacana keeni baa miisaanku yar yahay waad isku tallaali markaad isku tallaasho waxaa kuu soo baxaya 50-50 ilmo ah miisaankiina koray oo ka badan yahay kaagii adkaysigiina kii kale uu ka fiican yahay oo deegaankaagii la qabsan kara marka dhinacyadaas oo kale xagga kale xooluhu waxay ku nool yihiin waa calafka laftiisa marka in la darso nafaqadiisa la eego keenna iyo kuwa kale ee improvedka ahayd meelaha kale laga keeno laftooda la eego kadibna calafkii laftiisa in la beero oo dadku xoolaha dhaqanaya markii laga tago daaqidan iska caadiga ee dadkeena xoolo dhaqatada laakiin maadaama hadda magaalayntii iyo xoolo dhaqashadii casriga ahayd ay soo badanayso inay helaan calaf tayadiisu fiican tahay oo kala duwan oo aanaha kor u qaadaya marka farsamooyin noocaas oo kale beeraha oo kale dhulkeena abaaraha ku badan waa dhul qallalan roobkii baa yaraanaya marka haddii uu jiray haruur ku bixi jiray 6 bilood maanta 6 bilood roob ah ma haysatid waraabna ma haysid marka waa inaad raadiso ku 3 bilood ku baxaya oo intay qoyaanku iyo dhulku sayaxa iyo rayska uu leeyahay kobci karo oo kori karo ama kaba yar marka aan soo saaray dalagyo 75 cisho ilaa 90 beri ku go'ayo ku bislaanaya oo kala duwan oo haruur ka mid yihiin marka dalagyadaas talaalkooda wax laga keenay meelo kale laga keenay
wala meel xarumo waxa jira lagu sameeyo maaragtay wax la yiraahdo lagu soo saaro hidaha ama breeding wax la yiraahdo kuwaas laga keenaa marka daraasaad baa inta badan aad u socda waxa la yiraahdaa Ethiopia oo kale maaragtay xarumo waxa jira ka shaqeeya waxaas marka xarumahaasi dhulka qalalan bay isku dayaan mar walba in loo soo saaro wax cusub oo wixii hore ka duwan dhinaca kale cudurradii iyo wixii baa badan dalag adkaysi u leh cudurradaas oonkii iyo haraadkii u adkaysi leh cimilada u leh waqtigiisu gaaban yahay maxaa la yiraahdaa tilmaamo badan noocaas leh ayaa la raadinayaa marka kuwaasaad ka soo qaadi tiibaad marka deegaanka ku eegi annaga xaggeena hadda maadaama hadda waxaan breedka iyo samayntiisa iyo technology badan iyo cilmi badan u baahan yihiin weli annaga gudaheena inaan ku samayno maanan gaadhin laakiin haddaan gaadhnay inaan ardadii dhalinyaradii ilaa PhD ay bartaan oo hadda kadib inaan bilowno lafteena inaan breedkii aan wax soo saarno cusub laakiin inta badan wuxuu u badan yahay applied research baan samaynaa ama maaragtay adaptationka iyo waxaan xooga saarnaa marka qaab saasaan ay ku soo baxaan waxyaabahaas waxaad aad u tilmaamtay processka ay maraan mataqaanaa tijaabooyinkaasi si gaar ah tusaale ahaan xoolaha markay timaado ama idaha ama geela inagu qaab baynu u dhaqan jirnay Soomaali ahaan qaabna waa u macnaa facaadsan jirnay waxyaalahaas aad biiriseen qaab qofka jooga nolosha caadiga ku nool qofka xoololeyda ama beeraleyda uu uga faa'iideysan karo hal abuurkaas oo isagana scale-kiisa dhaqaale ama level heerkiisa dhaqaale la jaan qaadi karo uu xoolihiisa shilibkooda u biirin karo ama caanahooda u biirin karo oo ay soo saartay cilmi baaristu ama macad ku fududeeyay ma jirta waa horta markii hore sida aan sheegay cidda loo fikiraya waa cidda ugu dambaysa ee ka faa'iideystaha la yidhaahdo ka faa'iideystahana ma aha xataa qof oo waxaa la yidhaha waa qofka caadiga ah xoolo dhaqatada caadiga ah qofka ugu dambeeyaan u fikirayna waa kaas dadka kale ama ganacsato ha noqoto ama nidaam hadda casri ah wax u maareeyaan laakiin kuwa ma aha kuwa aan ku socno kuwaasi marba heerka la eg awoodiisa ayaan tijaabooyinka u gaarsiinaa dadkan aqoon badan bay xoolaha u leeyihiin dhaqashadoodana aqoon bay u leeyihiin laakiin dadka laftiisii baad marar soconaysaa hadda oo isbedel baa laftooda ku dhacaya oo fursaddii uu siin jiray dadkii hore ay siin jireen inay breedkooda wax ka qabtaan ama hidaha xoolahooda inay wax ka qabtaan laftoodii baa hoos u dhac ku jira marka dhinaca lafteeda xagga fidinta anagoo isticmaalayna cilmiga fidinta extensionka in iyagii laftoodii lagu baraarujiyo laga wacyigeliyo lana tuso wax kasta oo soo saarno waxaan ag dhignaa dadka iyagii baan u geynaa haddii aan xoolo cusub la helo farsamo cusub xagga xoolaha oo isku talaalkaas oo kale la helo waxaa la samaynayaa iyagaa loo tegi waxaa laga yaabaa 300 oo xoolo dhaqato oo kala duwan in la xusho loo tago la siiyo neefaf 5 neef 3 neef waxba la odhan kana eega iyaga marka eegay koodina way haystaan dhincaanihii buu isu tijaabin adkaysigii wixii noloshii wixii cadkii miisaankii wixii oo dhan buu isu tijaabin hadhowta marka isagii laftiisii wuxuu isku dayaa marka inuu badiyo marka haddana nidaam waxaan isticmaalnaa xagga fidinta neefafkaas waa neefaf iska dhal oo kale ah oo kale ha iska dhal markuu yahay qaabkaasaan u samaynayna biriirka si uu u fido kaas labada jiin isku wataa ama gudaheena xataa marar waxaan samaynaa gudaha laftiisa selectionkan aan ku sheegay gobol hebel ama degmo hebel baa meel hebla noocaas kaga fiican iyaga laftoodii baan isu tallaabinayna dadkeena xiriir toos ah oo ka dhaxeeya ma jiro waa laga yaabaa inay kala durugsan yihiin iyaga laftoodii aan sugano warbalneeb xoolahan meel hebla laga helaa eega way qaadanayaan geel baa laga yaabaa hadda gobolka city geel yar yar oo gaaban oo geel xeebeeda oo saasay haystaan oo xoog badnayn maxaa la yidhaha laakiin nolosha halkaa ku taalla ee kulul adkaysi u leh oo ilaahay uu la qabsi u sameeyey marka ku kale oo waxay keensanayaan markaasay ka odhanayaan awrkan meel heblaan ka keenay markii horena sidaasay u qoorsan jireen dadku laakiin hadda waxaad moodaa dadku berigii hore wan sumal noocaasaa ku jira meel hebla nin hebelaale dibisaasoo haystaa waa lasoo qoorsan jiray kugaasaad yar ka haysan bille iyo laba kula joogi uu u rimin kadib uu marka waa wixii ay ka shaqayn jireen oo lasii yar hagaajiyey aqoon lagu laday isla markaa wixii iyagu ka yar gaabiyeen dadku dib uga yar noqdeen oo dadkii hore siday dee
waxbaa soo yar dhex galay dadka laftiisa qaab dhaqankiisa marka taa lafteeda inuu qofku isagoo noloshii mar hadduu ku dhex jiro inuu ka faa'iidaysto oo nidaamkii dib ugu noqdo taa lafteeda waxyaabaan ka shaqaynay ka mid tahay sidee isku bedeleen markaad ku daydeen tijaabooyin samayseen ma inii soo baxday inay guuleysatay tijaabadii ahayd in la isu keeno labada xoolo tusaale ahaan kuwo laga keenay ama gobollada kale oo deegaanka yacni oo numberkii 2 neef ama 3 neef ayaa tira ahaan la keenay dabeetana dhalay oo noloshii markaas ay isbedeshay hab nololeedkii xoolihii markaa qofkaas haystay way isbedeleen oo caanahoodii baa isbedelay oo waa lagu lo iyo ida u badan hadda inta ayaa tijaabisay geela waqtigiisa maadaama kasii yar dheer yahay looda yaadhiga idaha iyo waxaan hadda ilaa hadda u badan kuwa aan F1koodii maaragtay ama generationkii labaad ama generationkii saddexaad ama kii maraya hadda waa kuwaas oo dadku hadda ay ka marakacayaan oo la arkayo oo inuu ka caani badan yahay adkaysiga uu normal noqday maxaa la yidhaha neefka u dhalaya kii kale ka xoog badan yahay waa labadaas u badan ilaa hadda inta